madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu ka baxay wadahadalladii Hargeysa iyo Muqdisho isla markaana taas beddelkeeda uu dhanka Soomaaliya garwadeen uu ka noqon doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mudane Xasan Cali Khayre. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la sheegay in muddooyinka dambe uu sii xoojiyay qorshihiisii ahaa wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya, waxaana la sheegay in uu dejiyo qorshe cusub oo uu ku waajahayo madaxda Somaliland iyo Soomaaliya sida ay la xoggaal ah u xaqiijiyeen wargeyska Geeska Afrika oo ah wargeys Soomaaliland oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu dhawaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uu ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo uu soo bandhigay qorshe ah in dhinaca Soomaaliya garwadeen uu ka noqdo wadahadallada iyo qorshaha ay Soomaaliya ku waajahayso Somaliland. taas beddelkeedana uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noqdo marjixiisa. isbeddelkan ayaa la sheegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku sameeyay fikir uu qabo oo ah in shacabka reer Somaliland xasaasiyad ay ka qabaan madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la sheegay in uu aqbalay qorshahan